tartankan waxaa nagu dhiirigeliyey kadib markii baahida aan u qabno ciyaartooyda inay habeen ciyaaraan aan aragnay noona saamaxday horukaca ka muuqda amniga magaalada ayaanu nagu dhiirigelisay inaan tartankan qabanno xilli habeen ah tartankuna wuxuu ku socdaa heer gabagaba ah caawana waxaa ciyaaraya labada kooxood ee kala ah Horseed iyo Heegan oo labada kooxood ka kala socdaan xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliiskaba labadaas kooxood ayaa caawa ciyaarta wada ciyaaraya ciyaarahanna gabagabadooda waxay ku beegan yihiin haddii Allah subxaanahu wa ta'aala uu naga aqbalo dhammaadka bishan ama 24 bishan hadda ma isdheeyeen kubadda habeen la ciyaaraya intan qalqi iimaanaysa balse waxaan ogaaday dadka inay isboorti jecel yihiin in badan meel lagu dheelayo ay ka maqan tahay maantana aad u jeedid taageerayaasha saan u buux dhaafiye garoonka u soo daawasho tagay inay anagana daawadaan ciyaartan dheelayno kooxda Horseed waxaan ku taageerayaa banooni fiican qaab dhismeed fiican tixgelin fiican ma sha Allah iyo banooniga soo bandhigayso inta lagu soo koobi karin inteeda kale nabadgelyada xamar waa mid ma sha Allah biri ka dambeeyso si saacideyso waxaan rajeynayaa mid ka fiican inaan gaarno bashbash iyo barwaaqo iyo qeyr iyo kulantin dambe oo isna ku dhamaysan cimirkan inta kale ciyaaruhu waxay kamid yihiin nabadgelyada dalka habeenna diil dheerana waxay dana ka sii mid yihiin bulsho soo jiidasho dadkan madiina ka yimideen oo ma ogtaa ku taal waxay ka yimideen yaaqshiid waxay ka yimideen daynile waxay ka yimideen dhakeeley waxay ka yimideen madiino Soomaaliya yani ciyaarta wanaageeda iyo sharafkeeda oo habeenka soo jiidaso maalintii la huufiyo ciyaarta ay sidoo tahay ay soo aadeen waxayna diyaar u yihiin in kooxdii wanaagsanaata ee nadiif ku badisa ee dagaal aan gelin ee badisa ay taageeraan marka waxaad ogaanaysaa in dalka ay ka dhamaadeen shayaadiintii wax weeraraysa oo ahaaday lama dheeli karo lama ciyaari karo isboorti lama dheeli karo habeen lama dheeli karo waxaan rumaynay in dalkeenu nabad yahay nadiifna yahay taasoo ah in ummadda Soomaaliyeed ay maanta shuclad iftiin oo maartay nabadeed u dhashay marqaati waxa ka tiin habeen la dheelayo awalna waxa galabtii dheelu jiray hoobiyaas oo dhaaf xasaabta marka hadda nadiif aan nahay dalku waa nadiif mashaakil male dhibaato dhanna waxa keenay jiray nimanka shabaab ku shaqeeyo balayda